محمد عبد الله حسن كقبصومay shirweynaha wadatashiga xukuumadda iyo shacabka ee midnimada iyo horumarka iyadoo halkudhaga wadatashiganina uu ahaa waxaan la dagaalamaynaa qabyaalada musuqa danaysiga iyo eexda waxaana shirweynahani ka soo qayb galay cuqaasha waxgaradka hooyooyinka iyo dhalinyarada ku dhaqan caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga halka uu shirgudoominayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar waxa uu ka horagelida ajendaha shirkani madaxweynuhu ka codsaday ka soo qayb galayaasha shirkani in ay ku furaan aayadaha Quraanka Kariimka A'uudu billahi minash shaytaanir rajiim Bismillahir rahmanir rahiim Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun intaasi kadibna waxa uu madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar goobtaasi ka soo jeediyay qorshayaasha ay xukuumaddiisu xooga saartay labada bilood ee ay hoggaanka deegaanka hayso xukuumaddu waxay jirtaa muddo ka yar 2 bilood muddadaas kooban waxaan xooga saarnay dhowr arrimood shaqadii u horeysay inaan qabanay ahayd dhanka ammaanka iyo dhanka siyaasadda meesha maana runtii ugu imanin nidaam dhisan oo aan dhaxalay saasi ma jirin sababtoo ah heer degmo dulcurashada ka burburtay shaqaaliga ka soo yaaceen isbedelkii dawladda ee halkan ka dhacay ma ahayn isbedel nabadgelyo ku dhacay oo qof uu ku wareejiyay marka waxay noqotay in nidaamkii si cusub loo bilaabo gebigiisii taas oo keentay marka in adeegyada bulshada la siin lahaa ay dib u dhacaan maadaama in xafiisyadii la sameeyo oo mas'uuliyiintii dib loo sameeyo ay maaragtay ay waajib noqotay annagu waxaan xooga saarnay barnaamijyahan dhanka siyaasadda in la xoojiyo Soomaalinimada oo ah qodob aan bariyahan ka hadalno walow isaga oo si barnaamij siyaasadeed oo urur ah hadda aan wali u wadin oo aan rajaynayno in marka hadda xisbiga dib u habeyn lagu sameeyo oo noqon doona ajenda weyn oo xisbigu iyo kawaaduud ka shaqeyn doonaan haddana barnaamijka Soomaalinimadu waxa weeye waa barnaamij haddii aynan hirgelinin ay adkaanayso in deegaanku sii wada socdo waayo bulshooyinka heerka aan taagan oo kala taagan ama nidaam cadaadisa oo xoog ku haya oo dadka laaya oo caburiya oo fikirka marka isaga la quman xoog ku meel mariya ayaa maamuli kara ama nidaam dimuqraadi iyo furfuraansho ah oo maskaxdooda kasbada oo waxyaalaha halista ah bulshada burburin kara ka hortaga si cilmiyeysan ayaa badbaadin kara marka inaga waxyaalaha ugu daran ee bulshada halista ku ah xakoonka qabyaaladda sida la socotaan qabyaaladaas oo shacabka caadiga iska shaqeystaan ku jirin laakiin siyaasiyiinta iyo dadka qofkii dan yeesha oo isticmaalo waxay keentaa kala fogaansho balaaran oo horseedi kara in dadku isku dhacaan madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inay lagama maarmaan tahay in la soo afjaro xiisadaha colaadeed ee deegaanada dariska ah iyo waliba in la dejiyo qoomiyadaha kale ee aan ku hadlin afka Soomaaliga ee ku nool deegaanka ee dhawaan lagu waxyeeleeyay qaar ka mid ah deegaanka waxaa kaloo xooga saarnay in Soomaali kaliya ma aha dadka kale ee Soomaalida aan ahayn ee deegaanka ku nool iyagana iyo Soomaalida dhexdooda colaadii la dhex dhigay in la baabiyo haday noqoto dadka magaalada degan ee Itoobiyaanka ee Soomaaliya ku hadlin ama dadka aan jaarka nahay sida ormada oo kale colaado la dhex dhigay baa jiray colaadaas la dhex dhigay mid shacabka ka timid ma ahayn badankeedu way jiraan meelo xitaa taariikh dib u raacdaan ishaysi dowlad ka jiray baa jira oo soo jireena mooyaala kamida dhanka jinacsan iyo tuuliya kamida meelooyin la isku haysan jiray oo colaado ay dhab tahay baa jirta colaado iyo ishaysi iyo dhulka riixasho soo jireena baa jirta laakiin badankeeda inta kale waxay ahayd wax maaragtay siyaasad ku salaysan oo deegaanka la geliyay ahayd oo ama xukun lagu dheeraysanay ama xukun cid kale lagu dheeraynay arrimahaas in la xalliyo iyadana talaabooyin aan ka qaadnay baa jira inkastoo si buuxda hadda aan wali aan u dhameystirin oo labadii maamulka annagii iyo kii Oromia labadu ay mashquul ku yihiin dhismayaashii dawladda iyo xisbiyadii iyo wixii haddana ajenda ahaan hawshaas in ugu yaraan dagaalkii abaabulaa ee siyaasadda la joojiyo taasoo noqon karo 80% 90% hadda dhiigii daadanayay maalin walba wuu joogsaday
madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha ay xukuumaddu xoogga saartay in la hirgeliyo ay ka mid tahay xuriyatul qowlka si shacabku ay u dareemaan dimuqraadiyad cadaalad iyo sinaan taasi oysan micnaheedu ahayn in waxyaabo lid ku ah sharciga iyo dastuurka dalka oo kicinaya shacabka la sameeyo iyadoo la cuskanayo kelmadda xuriyatul qowlka muddo dheer dadkeenu wuxuu ahaa dad shaambadaysan si uu ku shaambadaysan yahay oo aroor walba qofku markuu soo tooso uu ka walbahaarsan yahay maxaa lagugu sheegi doonaa ma urur hebel baa lagugu sheegi doonaa ma afkaar hebel baa lagugu sheegi doonaa oo macnaha xitaa luuqadeeni bay qayb ka noqotay wanjalaad wax la yidhaah waa la wanjalay arma la wanjalaa waxaana keenaya maaragtay waxay ahayd dhibaato joogto ah oo shacabku ay xorriyaddooda ayna ku haysan baa jirtay arrintaas in dadku ay xorriyaddooda soo ceshadaan xorriyatu qowlka la fasaxo wuxuu rabo qofku ku hadli karo fikirkiisa sheegan karo isagoo oon xuduuddii loogu talagalay aan tallaabin inuu diintiisa iyo dhaqankiisa u madax bannaanaan karo sida uu isagu ikhtiyaarkiisa tahay uu u noolaan karo taasna waa arrin aan xoogga saarnay ahay isla wararkaasi ayaynu weli ku guda jirnaaye bulshadii kala duwaneyd ee kasoo qayb gashay shirkan ayaa su-aalo ay tabanayeen ka soo jeediyay shirweynaha si markaasi ay jawaab uga helaan xukuumadda aniga waxay ku dhacday fooqa maaliyadda ka horeeya ee aareeda horteeda ayaa aan la heshiis lahaa dhulkii aan lahaa ayaa si sharci darraa laygaga qaatay markaan idhi waa sidee waxaad samaynaysaana dhulka maalahaanshaad u haysataa baa la yidhi xujaddii aad lahayd waan keenay markaan xujadaydii hor keenay baa la kansal lagu sameeyey maadaama ay meesha green area tahay waan kaan kansalnaa la yidhi isla saacad kadibna waxa lagu soo dul bixiyey xujad kale fooqa hadda maaliyadda horteeda ee aareeda horteeda ka dhismaya markaan idhi waa sidee sidana aniga waa la xidhay dee dadkeenna imika deegaanka joogaa waxay ka cabanayaan ani hebel baa iga dhacay aniga way ka sarraysaa cabashadeedu xagga sare intaa dhulka layga dhacay waxaa jirta inaan hay-adaha sharciga inaan ka dacwoodo isku dayay maxkamadaha heer gobol iyo heer deegaanba tootali mudane madaxweyne waa layga qaadi waayo wax dacwada madaxweyneheenii hortiisa haddaan maanta dhibaatada ka sheegana waa alxamdulilah hay-adihii sharciguna wax dacwada way ka qaadi waayeen meel alla meelan ciirsadaan waayey dhib iyo dhibaato iyo dil iyo dhac baa lai geystay xadhig waxa madaxweyne layga saxaxay iska daa xuquuq laysiiya anoo muwaadin ah inaanan laamida madow marin haddii aan laamida maro oon sidaa fooqa u eego 3 waneej ama 4 waneej baa imanayay habeenkii gurigeyga laygu imanayay inta lay kaxeeyo lay xidhaa lay dilayay dhibaatada ay soo martay mudane madaxweyne kaagama sheekayn karo haddaba waxaan maanta madaxweyne kaa codsanaynaa sidii hore aad u ballan qaaday dadka dalalka qasabka laga dhistay dadkii laabaa loo celin inaad ballanqaadkaagii mudane madaxweyne noo fuliso waxaan ku bilaabayaa jijiga agagaarkeeda dhul ballaaran oo waxaa ka jiray qodaal leh oo xoolo daaqaan oo dadku intifaacsado dhammaan casaan baa la geliyey kaara marra ilaa waddada lafacisa ilaa iyo waddada qabri bayax casaan baa la geliyey si danihii shacabka inta la isaga ilaaliyo dana shakhsiyeed loo isticmaalo taa xukuumadda waxaan ka codsanaynaa shacabkii iska lahaa dhulka in gacanta loogu soo celiyo xoolaha daaqayey ma daaqi karayn waxaa weeye beeraha laga qodanayey sidaa darteed waxaan xukuumadda ka codsanaynaa in hore casaanka ay ka qaado dan guudna ma ahayn dan shacab bay ahayd weliba mudane madaxweyne waxaan leeyahay gawaadhidii dowladda shacbi ayaa iska wata shakhsiyaad baa wata marka lala hadlana waxay leeyihiin madaxweynihii baana siiyey cabdi baana siiyey markaa jileecyada laydinku sheegayaa xuuf uma baahanine waa inaad kuwaa tallaabo ka qaadaan degdega oo hantida ummadda saaka waxaan arkayay maayirka magaalada oo bajaaj fuushan gawaadhidiina waxaa watay shakhsiyaal madaxweynihiiba ay siiyey baynay leeyihiin wasiirka xitaa magacyaan u sheegay saaka agtaada fadhiya tallaabo inaad ka qaaddo taasi waan codsanaynaa mudane madaxweyne xukuumaddii hore lermayna nasiin biyo namay siin waddo namay siin caafimaad namay siin 2 sano ayaanu dacwoonaynay haddaanu dacwoonay maalintii u dambaysay maayarku wuxuu nagu yidhi 1,300,000 ayaan idinka bixiyey oo laydha laydhkii baan tagnay
lacagti waanu haysanaabeyna dhaheen ilaa 2 sano wadadan baanu soconay haddii aan soconay qoodii leerku idinma raacayno ay afcadna dhaheen marka waxa weeye madaxweyne annagoo fursad kaaga faa'iideysanayna waxaanu kaa codsanaynaa qooda leerka inaad noo amarto dhankiisa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa halkaasi jawaab celin ka siiyay su'aalihii ay bulshadu ka soo jeediyeen shirka arrimahaasi waa arrimo xukuumaddu ay ka hadashay laakiin wax hal maalin lagu xalinayo ma aha wax hal maalin lagu xalinayo ma wali dhismihii maamulka iyo siideyntii miisaaniyadda oo ahmiyad balaaran la ayaan wali la dhamaynin marka dulqaad baa horta loo baahan yahay wax walba oo tabashooyinana qasab ma halka in laga sheego xafiisyada maaragtay in loo tagay tahay wixii tabashooyinka la xiriira dhulka xafiis dawladda hoose joogta xafiisyada loo tagayo tabashooyinka la xiriira dhanka xuquuqda insaanka xafiisyo loo tagayaa jiro iyaguna oo dhisan marka tabashooyinkoo dhan inay noqdaan ma tabashooyin lagu soo ururiyo madaxda sare madaxweyne ku xigeen cid walba muwaadin waxay tabanayso in xafiiska maaragtay khusaysa ay watagto horta waan ku maaragtay dhiirigelinayaa أنا وحارة أن هذا الرجل كله نقطة مركب ولا أنا كتجي وكسابسن فهم كدت كين وكقبان مركب دبل وقول نقول يتعدي دي هراء هذا مدة إن بشدة قريب كم يدي أيوة ورقته إن لجها بلوحي هراء دعي إن أيتهاي هل لوجها بصامية وشقوين كمان أنت إلا قبتها يدل لوجها بصامية تركها سوادة عن فهم سنين تاريخ الدنيا يتعددون هاي وقد عدون يلا بقد عشري قابل وجود بنا عشرته قابل وجود بقى معها كلفت أمنيشيا إلا اللي معه وحال وجود بقى إلا دوكمنت قريو إلا جهض له إن بنانك الله كانوا إلا عبيو تاريخ الحميد يلا وجود بقى سأ يدي بقول صلى الله مركا تعديدي هو لقى شيء كينيو أما لقى هذا يو بوب كي هراء داعي معناه معها إنه فائدة إرادة أننا نوتري سواء معمولهان أما الدم ببرياشو حكم فلان بهايستان ونوع بكو دعويان نوع الباقي قبتين حق يهم مخراتي كو فلان بهايستان وما بهنا ضد شراء مال فريستو إذا أنا كان اللي مسوي كذي كان شرعية حقين وحوي أصل كل ميس عرفتها ما هو حسن له بالشيء اللي لفت كذا لقبصة التعديل يا حقوق إنسانك إلا وطنته يا لا فهنسين يا ولي أي كده حكيتين وخربها وأين هاي واحد مرت صحة في الإمام بالغ الدوبية دوكمنتي بالغ الديارنية لما يلوه يوحي دعي لما يلوه ولا قرية ولا جهرنية تلفزيون لقى سيدينية وحارمها أسكم إذا حوالي وزرده ما لقضيه يا كم إذا لما أنتي كوا هذا لقضيه أنا ومن بلابين فدرال كا يجوا أنتي لحي إذا كان على جزيرة استياتي بشامله يجوا وجه يا بيجا بلابي oo xogta urursanay laakiin kuwa kale oo badan oo xawal wadareedii ay la soo faaro oo la soo guro annaga rabna odeeba shalay nin buu ku yiri adeer xawalahan aad soo farfaraysan adeer hal naga daaya dongorigi dhulka lagu dhuftaba madaxda soo booyay hadii kale buu marka hadii madax soo booyay madaxii cidii ku aastay waa in la sheego waa in la ceebeeyo waa in taariikh noqoto waana qaab looga gudbo tacadiyada lagu sameeyo dadka